qaraxii 14 Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu ahaa mid kamid ah qaraxyadii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhacay dunida aan ku noolahay. dad badan ayaa ku geeriyooday kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen. markaan suuliga ka soo baxay oo waxaan inaan weysaysto aan damcay oo meesha waji dhaqa ee qofkii yaqaan safaari ayaa garanayay inaan ka weysaysto aan shaatigii gacmaha furfurtay ayaa waxaan runtii maqlay dabeel xoog leh oo aad iyo aad mataqaanaa ii tuurtay oo qarax marka inay noqonayso anigu qarax ma aan moodin waxaan mooday dabeel ayaa soo gashay. Cabdiqani Said waxa uu kamid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi. waxaan ugu soo daatay wax la yiraahdo dhimbilo oo sida roobkii u da'ay oo holcaya oo runtii mataqaanaa qofka markaas joogo baa dareemi kara runtii boor iyo uuro iyo qashin iyo wadata ayaan ugu soo daatay sida roobkii waxaan qiyaasay inay da'ayeen dhibcahaas ama mataqaanaa birahaas sida roobka u da'ayaan muddo 1 daqiiqo iyo 30 sekin ah runtii 1 daqiiqo iyo bar aan dhihi karo oo bilahaasna waxay wateen holac oo runtii mataqaanaa aad dhulka ugu daadanaya ayaa lugta ayay iiga dhaceen birahaas bira kamid ah ayaa lugta iiga dhacay. muusan dareemin xanuunkiisa ilaa uu ka hubsaday inuu ka baxsaday goobtii qaraxa oo lugtii way jabtay oo runtii markaas aniga maana isdhihin waa jabtay oo waxaan ka cabsanayay in maadaama hadduu qarax dhaco looga bartay in mataqaanaa la isku soo galo oo hoteelka hoteelka ayaa target ah maadaama hoteelkan waa hotel isqishaag badan ay siyaasiyiintan aysan u badnayn runtii waxaan isiri maadaama qaraxan dhibaatadiisa intaan la eg ay ka soo gaartay bal yaan lagu soo galin meeshii oo haddana mataqaanaa lagu sii dhameystiray runtii waxaan isku dayay inaan cararo oo inaan cararo ayaan isku dayay laakiin waa carari waa isoo gali weysay waxaan bilaabay inaan gurgurto oo aan meeshii gurgurad uga baxo oo jilbihii iyo mataqaanaa ay murxaan markii isbitaalka la geeyey dareenkayga runtii aad soo walwal aan qabo ayaan arkay inaan lugta ka jabanahay oo la igu wargeliyay inay lugta jaban tahay oo labada lafood oo midda weyn iyo mid yarta ay 3 meel ka jabeen oo laga yaabo markii aan si cararay oo naftayda badbaad isdhahay inaan aniga isii boortay. waa uu ilmeeyay markii dhaawiciisa la soo mariyay maalmo kadib halkii qaraxu ka dhacay. maalintii labaad dadkii gurmadkii iyo mataqaanaa ayaa noo yimid waxay arkeen lugteeda inay mataqaanaa dhaawaceeda uu zaa'id yahay waxaana la yiri waa in lagu qaadaa dalka Suudaan loo qaaday khayraalahaas iyo dawladdeena iyo dadkii ka shaqeeyay arrintaas. runtii maalintii markii aan meesha marayay oo la iqaaday ambalaasta aan saarnaa markii aan soo maray meesha qarax ka dhacay sidee u ekeed maalinta ka tagay miir ma lahayn oo qof walba naftiisa ayaa mataqaanaa la cabsanay laakiin maalintii saddexaad ayadoo wali dadkii qaar ay ku jiraan meeshii oo laga soo gurayo oo mataqaanaa runtii ilmo ayaa ay qabatay oo aadan u ilmeeyay markaan arkay meesha muuqaalkeeda soo noqotay. Cabdiqani marna isma oran qaraxaas ayaad ka badbaaday. ma isdhehaynin mataqaanaa qarax noocaas oo kale ayaad mataqaanaa ka badbaadaysaa ama mataqaanaa ama goobjoog u noqonaysaa laakiin ilaahay ku mahadsan oo runtii iga badbaajay aniga iyo rag kaleba intii ku dhimatana ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacantana ilaahay ha ku caafiyo. waxaan isir meeshaan ilaahay ka badbaashay ayaa mahad iska leh wax aad sheegtaan waa dambi maadaama inta yarta ay ka soo gaartay. marka runtii damiirkayga iyo markaan fiiriyay dareenkayga runtii wuxuu ahaa mid aan la qiyaasi karin. dalka Suudaan loo qaaday dadkii Suudaan lagu soo dabagaan kamid ahaa muddo bilan ku maqnaa waa ka soo laabtay hadeertaan xamaraan joogaa. xasuustiisa qaraxa markii uu dhacayay sida uu ahaa jawiga ayaan weydiiyay Cabdiqani. runtii qarax markuu dhacay khayl ayaa isqabsatay dadku waa khayl dhaamiyeen qof dhahaya iyo badbaadiya qof dhahaya mataqaanaa ayaa liiga tagin meesha ayaan liiga tagin inaan soco karin oo qaraxa lugaha ka jaray maamo meesha taagan oo dhahaysa khaylinaysa oo dhahaysa ayaa liiga tagin nin gacanta haysta oo dhahaya mataqaanaa xageen ka baxnaa waxa ay hor yimid saaxiibkii Ahmed Haadi ay hor yimid oo aan ku iriniyo Haadi baasha meesha wala isku soo gali rabay xageen ka baxnaa meesha oo boor aad u badan oo meel wax loo jeedo aysan arag ugu mugdi sidii habeen oo kale ay noqotay meeshii. qaraxa kadib sidee buu dareemay? soo dareenkaygi runtii wuxuu ahaa dareen cabsi mataqaanaa igu dhaliyay maxaa yeelay waxaan isleeyahay maanta meeshaan kama badbaadaysid oo wala isugu soo galaya oo mataqaanaa meeshaan ku dhiman doontaa. dareenka qofka mataqaanaa cabsida uu qaban waa dareemi kartaa waxyaabaha sidii hore looga bartay hoteelada markii qarax noocan oo ay dhacaan in la iskugu soo daata ah oo la iskugu soo galo marka waxa waa runtii cabsidaas baa jirtay mahana hadda physical ahaan iyo mataqaanaa lugtaas iyo physical ay saameysay iyo cabsi runtii qaraxaas mataqaanaa mar walba aan cabsidii noocan aan sii qabo runtii way jirtaa ayadana dareenkayga noocaas cabsi ayaa jirta maxaa yeelay naftaada mataqaanaa mar walba waxay u baahan tahay inay hesho nabad inay hesho. sanad kadib saameyn intee la eg ayuu qaraxaasi ku yeeshay Cabdiqani? aniga dhaawacii soo gaaray runtii marka loo fiiriyo dadka kale aad ayuu mataqaanaa u yaraa oo waxaan ku waayay lugteeda midiga aan rabaa inaan mataqaanaa ayaa mataqaanaa jabtay oo ilaa hadeertaana saameynteedii ay taagan tahay bira ayaa ku jira
oo welina kuma mataqaanaa soco karo sanad kadib mataqaanaa sidii aan rabay howleyga uma qabsan karo ma ordi karo mataqaanaa maxaa yeelay weli dhaawacii ayaa sii muuqda banoonigii aan dheeli jiray exercise-kii aan samayn jiray waan gabay maxaa yeelay saameyn waxay igu yeelatay nafsiyan iyo mid mataqaanaa physically ama jir ahaan ah waxa uu qabaa in qaraxii 14 Oktoobar laga bartay isgacan qabashada bulshada Soomaaliyeed runtii casharo badan laga bartay waa markii ugu horeysay oo inta la is abaabulo dhalinyaro Soomaaliyeed is abaabulaan ay meel walba ay joogaan iskaga tolwacdaan ay dhahaan sideen ugu gargaarnaa dadkii masaakiinta ahaa ee meeshan ku dhaawacmay waa ogeed waxa la sameeyay waxa la yiraahdo gurmad qaran howl badan ay qabteen waxa kamid ah in dadkii ay daabulaan oo meelahan hadii wax looga qaban waayo dibadda geeyaan dada loo qaaday Turkiga dada waxa loo qaaday Nairobi dada waxa loo qaaday mataqaanaa Suudaan soo dadkaas waxaan ka baran karnaa in mataqaanaa si wada jirka inuu wax walba ka wanaagsan yahay isla markaana wax walba wada jir lagu qaban karo oo dadkuna Soomaaliyeedna ay isgargaari karaan argagixisada al-shabaab oo geysatay qaraxii musiibada qaran ahaa ee 14 Oktoobar sanadkii 2017 wali waxay ku dhiiran yihiin in qof iyo wadarba ay u laayaan dadka Soomaaliyeed waxaan isleeyahay wadankeena wuxuu u baahan yahay in mataqaanaa dhalinyarada ay u shaqeeyaan ay mataqaanaa isla markaana ay dhiirigeliyaan dadka kale si ay mataqaanaa wadankooda ay uga dhigan lahaayeen mid nabad ah hadii maalin walba midkeen ka soo hara qarax lagu dilo midka kale mataqaanaa xabad lagu dilo runtii dhalinyarada ayaa laga rabaa iyo dawladda sidoo kale inay ayagana mataqaanaa ka shaqeeyaan amnigii oo arintaas qaraxaas oo kale uusan mataqaanaa mar dambe soo laaban dadkii ka dambeeyana runtii cadaalad in loo horkeenan codsanayna Cabdi Shakuur Ali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho